maanta waa maalin madow dadkii Soomaaliyeed ee liido lagu xasuuqay ee abriyada ahaa baan rabnaa halka inaan ka tacsiyeyno ee wax alla waxay geysteen aan jirin maalin madow bay Soomaali u tahay dalka gudihiisa iyo dabadiisaba waxa halka ku haligmay oo ku dhintay dad abriya ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo 100 qof ka badan iyo 300 ka badan oo ah dad daawac Soomaali meel kasta oo joogto way dareemaysaa calool xumada halka ka dhacday xalayto waan dareemaynaa waan ka xunnahay waxaan ka tacseenaynaa eheladoodii waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan tacsi u diraynaa qoys dadka halka ku dhintay qoyskoodii qaraabadoodii ehelkoodii faamilkoodii dadkay wax la cunayeen kuway meel la seexanayeen kuway la hadlayeen kuwa tabaye ay u muuqato halka ay ka maqan yihiin ay u muuqato calool xumada iyo warwarka ay ku jiraan baanu la qaybsanaynaa haddaan Soomaalina ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo Soomaalina guud ahaan samir iyo iimaan ha ka siiyo masiibada halka ka dhacday dad baa kiriyeed gareeyay dad baa soo sameeyay ka soo sameeyay masiibada ee dadka abriyada ee wax dambiyo galeen geysan ugu tala galay inuu collective dhamaantood xasuuqo iyo ka ku diganaya isagoo magac Soomaaliyeedna la sheeganay waa isku mid waan cambaaraynayna kuwa soo xasuuqa soo diyaariyay intaas oo qof inay dilaan ugu tala galay iyo in ka badan iyo kuwa ku faraxsan ee Soomaalida ah ee af Soomaali ku hadlay in ilaa xalay halka ka arkayna la saaka ku faraxsan dadka dhintay intaba waan cambaaraynayna nooma kala duwana kuwa xasuuqa soo abaabulay iyo kuwa ku farxay dadka la xasuuqay annaga nooma kala duwana waan dhamaantood waan cambaaraynayna waxa kale oo halka rabaa inaan ka cadeeyo dadka magaca Jabuuti sita ee calaamada Jabuuti sita ee dadka la dilay ku faraxsan ee farxadu ka muujinaya ee ilaa xalay ilaa saaka ilaa maanta halka dadka dhintay ku faraxsan ee aflagaadeynay dawlad buu calanka Jabuuti leeyahay dawladdu inay wax ka qabataan ka rajaynayna calankani sharaftiisa iyo haybadiisa iyo karaamadiisa dawlad baa ka masuula culimada sirdoonka ka masuula iyaga ka masuula wixii cambaaraynaya ee ceeb u soo jiidaya ee waxaana Soomaali u qalmin ku leh Soomaali tacsi u fadhida idinka ayaa ka masuula ninka doonaya inuu dadka aflagaadeeyo dadka tacsida u fadhiya iyo dadka dhintay inuu aflagaado doonayo calanka Jabuuti soo qaadan ku aad waa leedahay soo qaado magaca ku hada annaga calanka Jabuuti ka masuula sharaftayada iyo karaamada iyo haybada calanka Jabuuti aad meel kaga dhacdeen idinkana waa cabaaraynayna waad baanu uga xunnahay Jabuuti magaca Jabuuti aan ku hadlay ehelkayagii baa tihiin ishaasi hadday wax kaaga dhacaan ta kala la ooyda Soomaali haddii la waayo Jabuutina la arki maayo waa walaalkay weeyaan Soomaaliya walaalkayga dhabarka nagu sidaay weeyaan wax kasto ku dhaca annagu waana taabanaysaa waan dareemaynaa niyadaan u dareemaynaa wanaagiina waan jecelahay xumaantiina iyo dhibaatadiina waan dareemaynaa waanu idinla qaybsanaynaa waan tacseenaynaa ehelkii iyo qaraabadii dawladda Soomaaliya iyo ehelkoogii iyo qaraabadoodii mar labaad qaraabadoodii dadkay wax la cunayeen meel la seexanayeen sariir la seexanayeen aqalka la fadhiyeen gooshoodii u muuqato ehelkoodii iyo qaraabadoodii iyo dadkoodii iyo caruurtoodii iyo walaalahooda waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan idinka siiyo iyagana waan u ducaynaynaa Soomaali masiiba dhacday masiibada sameeyeen waxani waa disaster u sameeyay bili aadan baa sameeyay dad baa u soo dadka ugu tala galay masiibada inay ka sameeyaan Muqdisho masiibada lama dhalan iyo dhibaatadan ka dhacaysa waxa la dhalatay maahine waxa dhici doonta inay ka baxdo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa way ku daashay Muqdisho dhibaato way ka daashay dil way ka daashay qarax way ka daashay masiibo oo dhan way ka daashay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ka dulqaado masiibada ilaahay baan uga baryaynaa dadka Soomaaliyeed way daaleen inuu ilaahay ka dulqaado masiibada
masiibadana dur degtay inuu ilaahay ka qaado ayaan u rajaynaynaa oon ilaahay u baryaynaa dowladdana waxaan u rajaynaynaa in noqoto soomaaliya dowlad adagi inay timaado oo dadkeeda iyo ammaankeeda iyo qarankeeda iyo dowladnimadeedaba ilaalisa inuu ilaahay siiyo ayaan ilaahay uga baryaynaa waan idin salaamayaa soomaaliya yoomul aswad baan ku jirnaa maalin tacsi ay soomaali meel kasta oy joogtaba way dareemaysaa tacsidaa maanta muqdisho taalla waananu ka xunnaa